muddo 20 sano ah Soomaaliya waxay ku jirtay dagaal sokeeye oo burburiyay dhaqaalihii wadanka. muddooyinkan dambe waxa ka jira meelaha qaarkood saansaan nabadeed oo suurto geliyay in magaalo madaxda Muqdisho ay soo gaaraan gurmad intii hore ka badan. inkasta oo rajo badani jirto, haddana dadka badankoodu waxay u baahan yihiin taakulayn. weli waxa ummadda haysta gaajo iyo cudur iyo dhibaatooyin badan. Amoud Foundation oo ah urur Soomaaliyeed oo samafal ah oo ku yaala magaalada Dallas gobolka Texas ee dalka Mareykanka, waxa muddo dhowr iyo 10 sano ah uu ku hawlanaa mashaariic iyo gurmad meelo badan oo kamid ah dalka Soomaaliyeed. Soomaaliya waxa saameeyay abaaraha ka jira Geeska Afrika. waa abaartii ugu xumayd muddo laga joogo 60 sanadood. taasi waxay keentay in dadka wixii hanti ay haysteen ka dhamaado, caruur tiro badanina macaluul u dhimato. Hospitaalka guud ee magaalada Muqdisho oo ah ka kaliya ee shaqeeya waxa ka batay bukaan jiifkii. waxa qabadka Amoud Foundation waxa kamid ah cunto loo qaybiyo dadka barakacayaalka ah ee xeryooyinka qaxootiga ah ku jira iyo meelo kale badan, iyo mucaawino joogto ah sanad walba oo la siiyo xarumaha badan oo agoomaha Soomaaliyeed lagu hayo oo kamid ah meelo badan oo dhulka Soomaaliyeed. gurmadka degdega ah marka masiibooyin dhacaan wuxuu kamid yahay hawlaha Amoud Foundation ahmiyadda weyn saarto. waqtigan abaaraha waxay Amoud Foundation furtay ilaa 22 meelood oo laga qaybiyo cunto oo ku kala yaala gargaara, baay, bakool, gedo, Muqdisho, Afgooye, Ximan iyo Heeb, Galmudug, Gaalkacyo, Boosaaso, Sool iyo waqooyiga bari ee dalka Kenya. muddo dhaweyd waxa safar ku tagay magaalo madaxda Muqdisho madaxweynaha ururka Amoud Foundation Maxamuud Faarax Cigaal oo cunto gaarsiiyay ilaa iyo 1200 oo qays oo ah dadkii ay soo barakicisay abaartu. What we have witnessed today is this is a crisis, it's an enormous crisis. We went and saw around 7 camps. There are around 1,500 families, and the average of families between 7 to 10 children. Our initial was to do an assessment. We will distribute already 600 cards that can, inshallah, I will take care of around 600 family. And inshallah, in this afternoon, we're going to distribute another 600 families. What we're doing is, inshallah, when we distribute the card, they will come here and take their food. This is how we can manage, because when we brought it here, there's not enough money and food that can take care of all this. The people you have seen, there's a sea of people who need your help. sida walaalka Cigaal sheegay waxaan aragnay waxa weeye aad looga naxo qofka banaadamka taabanaya qalbigiisa. waxaan hawshan ku soo dhex jirnay muddo dheer oo aan ka qaybinaynay gobolada Amba iyo Bakool iyo Gedo ilaa iyo Ramadaankii ilaa iyo xilligii ay bilaabeen dhibaatada bilaabatay. aad bay u mahadsanyihiin walaaluhu way dadaaleen ma sha Allah, khayr Allah siiyo, laakiin dhibaatada wali waa taagan tahay. waxaa la rabaa inay nasanin insha Allah, anaguna ma nasan doona insha Allah, waa dadaali doona biidnillah, inta waa taagnaan doona. inta qof walaala baahan yahay waxa la idinka rabaa idinkuna inaad taagnaataan oo aad dabooshaan baahidiisa. Thank you very much, jazakallah khair. inkasta oo Amoud Foundation dadaal xoog la gashay, haddana baahidu way ka weyn tahay. sawirada aad arkaysaan waxay ka tarjumayaan xaaladda adag ee ay ku jiraan ummadda Soomaaliyeed weli. Amoud Foundation waxay waxqabadkeega ku kala bixisay meelo badan. ilaa 650 qoys oo Soomaaliyeed oo jooga gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa cunto la gaarsiiyay dhawaan. waxa kale oo cunto weelka wax lagu karsado iyo qalabka lagu seexdaba la gaarsiiyay dadka ku soo barakacay xarunta qaxootiga ee Dadaab. ilaa 3 milyan oo Soomaali ah ayaa wali khatar ugu jira dhimasho oo u baahan gurmud degdeg ah.
I really want to appreciate one more time this organization, Amoud Foundation, and its president, Amoud Foundation, for having come to us in this moment of need, and welcome also a better relationship in the future to try and assist the population, the affected population. Amoud Foundation waxay ugu baaqaysaa caalamka iyo Soomaalida qurbajooga ah dhammaan inay gacan degdeg ah ka geystaan baahida ummadda Soomaaliyeed ku habsatay. We ask our brothers and sisters in North America and in all over the world to help their brothers and sisters in Somalia. People come here, take reports, then they leave. They haven't seen anybody, any agent who distributes food to these local. These people just came, some of them came last night. We witnessed 2 children that died this morning. So we're asking our brothers and sisters in North America, our Muslim brothers, our Somali brothers, please open your heart and your wallet and donate to Amoud Foundation. Ummadda Ilaahay waa mid waa inaan loo kala hadhin gurmadka loogu jiro dadka tabaalaysan ee Soomaaliyeed. Soomaaliyeed toosoo isku tiirsadayay hadba kiina taag daranay taageera waligiinay. Wixii war dheeraad ah iyo sidaad uga qayb gali lahayd gurmadka Amoud Foundation nagala soo xiriir barta internetka ee www.amoudfoundation.com ama telefoonka 1-866-926-6831. جزاكم الله خير.